بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قالي maanta waxaa inoo wadaa doorsho aad u jilicsan waxa kariyay foorna la'aan hadaa haysanin oven ama korontada wax lagu kariyo ka faa'iideyso uu ku anfacaya insha Allah walaal qaali waxaan ka codsanayaa haday tahay marka kugu horeysay oo soo booqato oo videogeyga uu ka soo horbaxo in aad subscribe ii saarto ii like gareyso ii share gareyso muuqaalkana ay ii dhameysato waa mahadsan tahay asxaabta hore ila joogtana dhammaantiin waa mahadsantiin ii like gareeyo muuqaalka soo dhawaada waxaan rabaa inaan ku soo shiito makiinada cabitaanka lagu shiito gacantana waa ku samaysan kartaa laakiin waxa waaye makiinada waa hawl fududeed hal mar baa isku dardari marka ugu horeyn waxa ku soo shubaneynaa sokorta waa hal koob oo bakeeriga shaha lagu cabo waaye iyo ukun 3 xabe ukunta hadaa rabto adiga waa ka badsan kartaa inta aad qasayso qiyaasteeda ku xiran tahay ukun 3 xabe iyo sokorta waxa ku soo daray kara hala caano intaas rabaa inaan isku soo shiido intaas gaar u shiideynaa sokorta waxa waaye in marka hore gaar loo soo shiido dhaqsi ma shiidmanayso waxaan ku soo daray kale koobki shaha oo buuxa oo maxay ahayd saliid waa saliid iyo butter ama buluban aan isku soo dhalaaliyay inta kalena aan ka reebay gadaal aan hadhow uga soo shiidi yar rabaa inaan ugu soo dardaro marka hadda waa soo shiidaneynaa waxa soo shiidaneynaa waa sokortii ukuntii iyo caano iyo hala yar oo saliid kadib way noo soo shiidmatay meeshan waxaan ku haystaa 2 koob oo bur oo bubuuxo bakeeriga hadda baa ku cabiray shaah lagu cabaayay waxa ku soo daro kale hal qaado oo baking powder way soo dhaxgaliyay kadib waxa ku soo daray ukuntii iyo soo shiidmatay sokortii kadib waxa sameeyni marka waa soo dhaxgalgelini sifo uu burka u kala firfirdhin si fiican isku dhaxgalgelini kadib waan soo shiideynaa insha Allah caanihi iyo saliidii aan reebay yar ayaan ugu soo shiidi yar aan ugu soo dari asxaabteyda qaaliga waxa ku soo daro kale heel aan soo tumay heelka waxa waaye uu ku carfinaysa idoo carfi doorshada ama keega marka intaan isku soo shiideyna si fiican waa shiiditaankii ugu dambeeyay walaalay Soomaaliyeed waxaan iga codsanayaa hadda intan ila soo gaartay inaad muuqaalka ii like gareyso hadaa subscribe ku ahayn ii subscribe gareyso kadib waxaan soo qaatay digsigii aan ku karin lahaa digsigan aan ku karin rabaa waxa ku soo shubay saliid brushkan aan u soo qaatay si fiican aan u soo marmarin meel kasta hadii kalena gacanta ku marsan kartaa kadib waxa ku soo shubi burkane waxa waaye burkii saliid markaas ku darto digsiga ma ka qabsanayo kadib waxa ku soo shubay burka way iga yar batay wax yar waxa waaye saliidan ku soo kordhiyay burka wax yar way iga yar batay waxa sameeyay marka saliidan ku soo kordhiyay saan brushka ugu walaaqay maasha Allah saas ku soo baxay burka badan waaba fiican yahabo waxa yeelay digsiyaashan way ku dhagaan
marka burka badan wuxuu ka saaciday inay ku dhagin burka ama doorshada digsiga. kadib markaan soo shiiday doorshadeyni waa kaasaasay kusoo baxday maasha allah. waxaa kusoo shubanaynaa digsigii. maxaa waaye casiri yaroo iska fudud oo hulfududeed ee waqti badan ka qaadanaynin. asxaabay midda kale waxaa ii shidan jikadii ama dhuxushii waan soo shitay already way ii diyaarsan tahay. marka waa in ay kusii diyaarsanaataa oo dabka aad sii shidataa. waxa jikada lagu kariyo ama dhuxusha horta ma ogtiin inay cuntooyinka ay ka macaan tahay lagu kariyo. cuntooyinka gaaska ama korontada lagu kariyo walaahi caraf gooni ay leedahay. dhuxusha ama jikada waxa waaye guri kasta oo Soomaaliyeed ma laga waaynayo sooma jika badanaa laakiin digirta ama maharageedii iyo galeydii waxaas un baa la iskaga karsadaa. laakiin cuntooyinka kale adaa ku karisa xitaa macaan maasha allah. maxaa yeelay awalba iyadun baa lagu soo dhaqmi jiro oo lagu soo karsan jiro sooma gaaskan hadda un buu imaaday mar dhowe. asxaabtayda waxaa soo dhuxushiyaan soo wada sarsaaray digsigii ama dawoolkiisii. waxaa fiican in kor laga wada saaro dhuxusha maxaa yeelay hoos dhaqsi maxaa la dhahayay wuu ka gubani digsiga ama doorshada. aniga hadda intaas yar un baan ku reebay waxay sidaa tahay wax yar brown ayuu noqday hoos. markii dambe waaba kasoo bixiyay kor aas kugu keenay hoosna waxba uguma reebin. marka waxaa fiican hoos in wax yar un loogu reebo oo iska dambas kor laga wada saaro. marka dhuxushi saasay kusoo baxday ilaa iyo 30 daqiiqo miya adii xoogaho aan sugayay. dhaqsi ma fiicno inuu karo keega haddaa u kaadiso dabka oo dabka u yareyso maxaa waaye si fiican uu usoo karayaa gudihiisa. marka waa arkaysiin maasha allah quruxuu kusoo baxay. waxaa waaye qaybta kore waxaa iiga daatay dambas yaraa iiga daatay intaa laa ilmaha iska fiiri. marka qaybta kore wax yar waa kasoo gooyay inaa arkaysiina umalaynaa. marka maasha allah saasuu kusoo baxay asxaabtayda keegeeni si qurux badan gudaha wuu ka karay maasha allah. asaga dhan waxaa waayo waa jilaac. marka maxaa waaye wax kasta ina steamerka ama ovenka lagu isticmaalo ma ahan. dhuxushi xitaa wakaas maasha allah qurux ayay kusoo bixisay keegii. dhuxushaaba ka macaan oo ka udgoon markii wax lagu karsanayo. marka insha allah asxaabtayda qaaliga intan hadaa nala soo gaartay waxaan kaa codsanayaa inaa noo laygarayso. asxaabtayda ii laygareeya muuqaalka subscribe ii saar hadaa nagu cusub tahay. waxba leegta iyo subscribe-ka ma kaa dhibayso aniga unbay wax ii taraysaa inaa horay u socda iga saacidaynaysaa. marka asxaabtayda qaaliga ah subscribe-ka iga ilaawina horay ii wada insha allah. khayr ayaan nii rajaynaa.